iyagoo u fadhiya shir xasaasi ah ayaa gantaal cirka ka yimid ku habsaday 11 ka mid ah ayaana bartaa nafta ugu baxday 4 kale waxaa la soo warinayaa in ay xaraarug yihiin oo ay naftu hayso muuqaalkan waxaan kugu wadaagi doonaa dhacdadaasi meesha ay ka dhacday cidda lala eegtay cidda geysatay iyo waliba goorta la geystay balse marka hore haddii aan ka mid ahayn saaxiibadeena nagu soo biiro channelkeena subscribe noo saar baraheena kale ee bulshadana oo soo follow garee aragtidan waa inoo muhiim halka hoose ee faallada inoogu reeb mahadsanid sida hordhacaan idinkugu sheegayba 11 xubnood ayaa la dilay 4 kalena waa la dhaawacay dhacdadan waxaa ka dhacday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe bisha hadda aynu ku guda jirno 27keedi ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxa ay weerar oo cirka ah ku qaaday koox ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo ka koobnaa 15 xubnood oo ku shirayay villa aadan yabaal 11 ka mid ah halkaas ayaa lagu dilay oo gantaalkii halkaas lala eegtay ayay ku geeriyoodeen 4 kale oo 15 ka mid ahaa xaaladooda waa laga deyrinayaa oo waa xaraarug nafta ayaa haysa waxaana ka mid ah 4 dhaawac culus ee soo gaaray kaba ku dukade waa mas'uul al-shabaab ka tirsan oo gobolka shabeellaha dhexe u qaabilsan wararka ayaan waxay sheegayeen in hadda mas'uuliyiintaasi shabaabka ka tirsan ay ka shirayeen sidii ay u arqaladeyn lahaayeen amniga soo hagaagaya ee deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe si ay u arqaladeyn lahaayeen ayna u qashqashaadi lahaayeen ciidamada ammaanka ee markaasi sugaya amniga dalka balse dowladda federaalka oo feejigan arintaasina ay dabagal ku haysay ayaa ka hortagtay qorshahaasi oo ay halkaasi weerar gantaal ah la eegtay sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay in qorshahaas iyo qorshayaal kale ee ay shabaab dabacsi yihiin in ay og tahay kana hortagi doonto misna ay ka go'an tahay dowladda sidii ay markaasi u dabargoyn lahayd kooxda al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ku sugan magaalada Gaalkacyo oo shalay gelinkii dambe shir jirayd ku qabtay magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya qorshahaasi ee weerarka ee xubnahaasi lala eegtay in ay ka soo shaqeysay misna qorshaha sidii loo dhigay uu u fulay wasiir Fiqi waxa uu sheegay in dowladda ay joogteyn doonto iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda weerarada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee dowladda ay qorshaheedu ku yahay in ay ku baabi'iso xubnaha horjoogayaasha ah ee kooxda al-shabaab runtii u digaynaa oon ugu ogeysiinaynaa kooxaha argagixisada madaxdooda inaanay jirayn meel ay ku nabad galaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka mid tahay goobaha farkutiriska ah ee hadda al-shabaab gacantooda ku jira dowladda seena waxa ay qorsheynaysaa in gebi ahaanba gobolkan shabeellaha dhexe laga sifeeyo kooxdaasi al-shabaab iyadoo dhowaan taliyaha ciidanka xoogga dalka uu ku dhawaaqay in dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab oo loogu sifeynayo deegaanada hadda gacanta ay ku hayaan in dowladdu ay bilaabi doonto taliyuhuna ku wargeliyay ciidamada in ay u diyaar garoobaan sidii dagaal culus loogu qaadi lahaa kooxdaasi al-shabaab maanta laakiin waxaan joognaa in ummadda Soomaaliyeedna rajo aad u fiican ay ka qabto in xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed nimanka argagixisada ay soo afjari doonaan ayagana ay dabcan ay dareensan yihiin waliba inay maalmihii ugu dambeysay ku jiraan al-shabaab ayaa weerarkan ee hadda ay fulisay dowladda waxa uu ku noqonayaa dhabarjab aad u weyn xilli la sheegayo in ay qorsheynayaan in amniga ka jira deegaanada Hirshabeelle iyo gobolka Galgaduud in ay ku arqaladeeyaan qorshahoodu sida ahaa ay dowladdu ka hortagtay 11 gaasi xubnood waxay ka mid ahaayeen xubnaha sarsare ee kooxda al-shabaab ee talada ka go'da waxayna go'aaminayeen in gabi ahaanba amniga soo hagaagaya Soomaaliya ay arqaladeeyaan balse
iyagii ayaa laga hortagay oo la arqaladeeyay adugu sidee aad u aragtaa in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay laba jibaarto weerarada ay ku beegsanayso horjoogayaasha kooxda al-shabaab aragtidaadi halka hoose ee faalada inoogu reeb mahadsanid